الرحمن الرحيم مرة راح لكم وحن كسلام يا مرت الشرف وكسر قيب كشي دمان والدين تأيي عيالنا special needs كا أنا بقول وحن كقدومية هاي عيالنا special needs كا مرة عيالهم وحن حكنا عن حفلة أنا صابر نجيا دولتها يو هيدها سي وقرطان بدي أول خصيصة إنه وقبل كلام عيالهم باهياشا gaarka ah qaba oo kala duwan baahidoodu oo naaqadoodu qaar saddex ay ka badan yihiin qaar laba ay yihiin marka waxaan rajaynaynaa in markaan u soo bandhignaa barnaamij hawlahan ku saabsan ciyaalka in cidii awood u leh inay wax qabato hay wax noo qaban karto marka waxaan ku soo dhaweynayaa تشرف الله يا طيب بدك أنا مثلا طيب في شيء برنامج كير بسبب special needs كا وحن هذا هالك جوجا وما أنت كسر قيب كلي يال بدل أو هندي كذا أو بهن إنه تأكليه يال كاسي أو بدل كوكو إنه وحبي برين كريم لكن هذا الأسبوع من دايما تشرب هذا قيبها هندي كذا وهو وين وايد جوجا ويال بدل تمرك واحد مصاب عندك إنه عدي وحقا بكرتا هايده وساردها لما أنت خصيصة أبيك وفوق بكرة. هو يمكن قال يتمر كان متكمدة. كل واحد اللي يموت يعيان كبع قلمه وين عين كبع اللي يركوا على يلا ذا إنه علم قاطع. يا هاي إنه إن بحال إنه قلت إنه إنه علم قاطعنه. بقى هو يمكن الشيء والد كان يقصد بتواتي دبنا الناس واحد جتي. هو يكمدة أيام كسر دوين دونا يدنا وأخذ عباس. خضرة هو يسوقع هكذا كده يوفي كده. دمان بشوية مسؤولية مدى ماشى كارها قدوميها مسارة برشة الدقمدة. هذا أنت كذبه وحد ما قالوا عليا قرض اسمه شيء أوح على أخرى يسوق هوش النصوص أو قابسين عروتي غير بعيدة كانت كلها غيره كاني مع والدي ضمن كده أي وضعان كل يبتو يروح يقول على مويلة روتي يقول على والما أصله وشيء إلا إنك إلا أنت قدر بهاي يضبها هيسا أبوه وحي ربكم يا روتي ترى دعاء يتم بردا دعاء الماء يرى أنا بسرني runtii waxa weeye inaanu dadka ku dhiirigelino in guryaha laga soo saaro carruurta noocaas oo la soo bandhigo oo qofkii wax baran kara wax loo bilaabo oo qofkii dhakhtar u baahan dhakhtar loo bilaabo laakiin aynaan ka xishoon oo sida loo badan yahay ummaddu ay tiraahdo tolo haddana ilmaha malaa dibadkiisa waa oran yahay taasi waa caado xun wey dhaqan xun wey runtii ilmaha waxaa loo baahanya ilaahay baa abuuray qadarka ilaahay baa haya adigoo imika isla wadlan tahay baa ilaahay lagu goyn karaa maahay accident baad geli kartaa curyaan baad si dhibeer noqon kartaa maahay il baad beeli kartaa marka wixii ilaahay nolosha ugu talagalay inaad marto ilaahay ma joojinayo ugu talagalay sidaana dunida u marto oo dabeedna halkii loo badnaanu yeelo ilaahay ugu talagalay runtii marka ilmaha ayada imika igu dhow ee aada igu dhow waan dareemayaa aad baan u dareemayaa dhibaatada isaga ku taagan waalidka ku taagan mujtamaca kale ku taagan ee qolka dhaar ka qaadaan runtii aad u maartay oo dareenkooga wax iska bedelayaan waan arkaynaa hase yeeshee waxaa laga yaabaa qaar ka maaragtay ka roonay in guryaha lagu ilaaliyo laga yaabo markaa bulshada waxaan u baaqaynaa gobolka gaar ahaan ama Soomaalida oo dhan carruurta in dibadda loo soo saaro runtii oo albaab kasta oo dowladdu joogto la garaaco
waxa uu sareeyaa halkan gobolka Barasaabka uu sareeyaa runtii Barasaabku waa inuu helaa liiska gobolka ee carruurta yaryar aan dhamaystirnayn guddoonka waxbarashadu waa inuu helaa liiska kama dambaysta ee ardayda yaryar aan dhamaystirnayn isku duwaha caafimaadku waa inuu helaa carruurta yaryar aan dhamaystirnayn liiskooga runtii waxaan ku boorinayaa hay-adan ubaxii waxaan ku boorinayaa inay liiska ayagu noo soo diyaariyaan oo noo soo gudbiyaan dabadeedna la eego balintii waxbarasho diyaara wax loo bilaabi karaa waayo halkan baan ku haynaa dhismihii qalabkii waxbarashada waanu haynaa buugkii waanu haynaa qalinkii waanu haynaa oo bilaasha macallinkii waanu haynaa oo bilaasha marka waxaa naga dhiman carruurtii oo la soo joojiya runtii run ahaanti waxaad moodaa inaan anagu shaqadayadii oo socoto nafka uga galay waxaan nahay badbaadada ama dhowrista carruurta hadda sidii loo yaqaano qodobna ka mid ah oo muhiim noo ah oo carruurta naafada ah ayaa ka mid ah shaqadayada carruurtan naafadu waa laba qaybood qayb maskax ahaan ayay naafo u yihiin qaybna jir ahaan ayay naafo u yihiin ilmaha markaa la keenayo qaybta baahiyaha gaarka waxa aada ugu baahan ilmaha maskax naafeedka qaba in la baro ugu yaraan inuu dharkiisa xidhan karo saxaradiisa maamulo karo isagu wixii baahidiisa gaarka ahayd hooyadii ku tiirsan yahay in tababar loogu siiyo maaha runtii hawl fudud waa hawl aada culus waa hawl aada ballaaran una baahan dadkii hawshaa qabanaya oo tababaranaya gacanta ku dhigaan carruurta jir ahaan naafada ah halkan waxaan uga faa'iidaysanayaa waalidiinta in carruurta naafada jidhka ah واحد ilmuhu ka maqan yahay maskaxdiisa naafo maaha in waxa jirta wasaaradda waxbarashada had iyo jeer aan uga sameeyno doodis rambis wax la yiraahdo halka carruurta markay iskuulada ay ka soo galayaan gaari curyaanka oo soo mari karo in dhismo kasta oo la sameeyo loogu daro rambiskaas carruurta curyaaninta ay soo maraan ilmuhu hadduu waax laayahay misalan hadduu lug laayahay ama uu gacan laayahay macnuhu maaha waxbarashadii uu ka dhacay ilmahaas naafo buuxa maaha naafo jireed inta maanta buurabe أنا وحنا شقيا قلوين كليا ضد كده كبركة واحد أبنه عروض تنافض وحي أبدي من تتكاس نفقد هذا هو قفضنا تربيات هذا كنتا يدا يعني كوي ما ده يمون مركو يريه سياق فربضو بيمون نافض ونقكر مسوقه بكرنا برنامج كني أد بلاريا دي لك ولا هذا يعاون حكوسين إن أورك سوق من جهاز القارية قبل قدوميها أوح إن أنا حرير أنت كقطر دير عمري الله يرنو أنا كعاونه ضد هالك اللي جه اللي هي باهظ وبضن هاي إن أنا دافرنو سيبونه وقد بقرا awareness kan loo sameeynaya in lagu soo shaac saaray carruur naafa wax loo qabanayana media waxaan u marinaynaa dhammaan baayac mushtarka gobolka ha ka bilaabanto culimaa diinku bulshadeenu de intii wax cunaysay intii ordaysay waxay Soomaalidu tiraaniman halin habartii qadisay intii waad aragtaan iskuulada lagula tacaalayaa inkastoo ay jiraan carruur fara badan oo dayaca haddana bulsho fara badan oo laga yaabo wax kaliya maqan tahay maskaxdiisa looga faa'iideysan lahaa in wax badan dadka tari lahaa in guryaha dhexdooda lagu qarinayo oo waalidku ku qarinayo dhaqan baa loo qariyaa caafimaad baa loo qariyaa sumcadda qofku ilmihiisa iska sarreysiinayo carruurta u qariyaa haddii maanta la yidhahdo carruurta baahida gaarka ah qabtaa wax la siinayaa halkaas soo tuba kala badh boorama soo dareeri waan xaqiiqo jirta carruurta waa la qariyaa waxaan idiin sheegayaa carruurta inta maanta halkan keentay boqolkiiba boqolaad ku mahadsantihiin ilmaha ilaahay ku siiyay waa hadiyad adiga gaar lagu siiyay waxa laga yaabaa hadda 10 carruur dhashay ilmaha siiyay waxa laga yaabaa kii khayr ku jiro inuu ilmaha yahay carruurta laga warayo ilmaha yare baahida gaarka ah ma aha uu ka baahi badan yahay ilmaha kale wuxuu ku jiraa marka waliba baahi maskaxeed uu qabo xilligii 40 ilmaha ay kula jirto hooyadu ay saxarada iyo kaadida gogosha kaga biinaysa ilmahaas ku jira waxa weeyaan dhibaato haysa jidhkiisu uu koraya qaar baan jidhkiisina koraynin maskaxdiisina aanay koraynin oo qofkii buro ilaahay u dhiibay ah laga yaabo inuu khayr ku haysto ku jira carruurta loo naxariisto isgaarsiiya carruurta waxaad arkaysaa ciidda ilmo naafo dibadda loo soo saaray ma arkaysi aabba walba iyo hooyo walba waxay ku xarugooda carruurta yar reefiyo oo xaafadaha geeyaan ilmaha naafada xataa lagama yaabo in arbaxa la siiyo oo loo dhameystiro carruurta yar naafada guryaha marka ay joogaan in kalmad xun ama erey xun ama wax xun imikada waxaan ka cudur daaranayaa xiriiriyaha iyo wuxuu aad focus u saaray carruurta maskaxda loo koriyo niyad jabiyaan lagu riday magacyo gaar ayaan loo bixin runtii waxa weeyaan fursadani de mid soo gashay weeyaan hadalkayguna aad u tiro badan yahay
kagamana wada dhammayn karno kagama bogan karno laakiin waxaan u ballan qaadayna anagu as urur in aan wixii aan khibrad ku hayno ee meelihii kale aan ka soo shaqeynay kula kulanno aan ururkii ugu gargaarno oo anagu qaybta ku fidino aad iyo aad baad u mahadsantihiin isgaarsiiya wacyigelinta waxaan uga baxayaa idinka